aan halkan ku xusayno maalinta badqabka cuntada adduunka World Food Safety Day. Waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo kulankan muhiimka ah ee maalinta badqabka cuntada adduunka oo ku beegan 7 Juun 2020 iyadoo weliba sanadkan ku soo beegantay waqti uu caalamku dadaal weyn ugu jiro la dagaalanka cudurka safmarka ah ee COVID-19 oo halis badan ku haya caalamka iyo dalkeena Soomaaliya. Mudanayaal marwooyin dhammaanteena waa inaan ka qayb qaadanaa dhiirigelinta badqabka cuntada annagoo u marayna in aan halka caafimaad ama one health approach taasi oo macnaheedu yahay khatarta cudurrada isaga kala gudba xoolaha iyo dadka bani'aadamka oo asaas u ah bani'aadamka gaar ahaan dalkeena Soomaaliya waxyaabaha ka yimaada cuntada xoolaha iyo waxyaabaha ka yimaada digaaga caanaha si looga hortago dhibaatooyin caafimaad ee ku dhaca bani'aadamka. Mudanayaal marweyn iyadoo la tixraacayo dadaalada ay iska kaashanayaan hay'adaha qaramada midoobay ee FAO iyo WHO isla markaasina ayagoo u fududeynaya wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay inay dadaal u galaan muujinta maalintan si ay dadka ugu baraarugaan isla markaana ay u noqoto wacyigelin iyo dhiirigelin bulshada loogu sameynayo sidii loo xoojin lahaa ka shaqaynta badqabka cuntada adduunka iyo muhiimadda ay u leedahay caafimaadka xoolaha iyo bani'aadamka. ka shaqaynta badqabka cuntada waa mas'uuliyad wadareed ka dhaxaysa dawladda, dadka ka shaqeeya wax soo saarka cuntada iyo dadka guud ahaan oo ah kuwa quuta wax soo saarkaasi. qof walba wuxuu leeyahay door u gaar ah oo la rabo inuu ka ciyaaro si loo hubiyo in cuntada aan cunayno inay ka badqabto wax dhaawac u keenaya caafimaadkeena, iyadoo loo marayo in wacyigelin guud la sameeyo maanta oo kale oo ah maalinta badqabka cuntada adduunka iyadoo laga hortagayo cudurrada ka dhasha cuntada si heer caalami ah. annaga wasaaradda xanaanada xoolaha, dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaan qayb ka nahay ololahaas caalamiga ah. sidaa daraaddeed badqabka cuntada waa ajande ama howl uu qof walba leeyahay, waayo qof walba ayay saameyn ku leedahay, waana inaan dhammaanteena u istaagnaa sidii aan uga miro dhalin lahayn ujeedooyinka caalamiga ah ee lagu xaqiijinayo badqabka cuntada iyo dadaalada ay wado xukuumadda federaalka Soomaaliya annagoo mar walba la kaashanayna dadka ka shaqeeya wax soo saarka cuntada, bulshada, dowlad goboleedyada iyo hay'adaha caalamiga. waxaan ganacsatada ku boorinayaa inay si dhow ula shaqeeyaan dowladda si loo gaaro bulsho badqabta dhibaatada ka timaada cuntada iyo cudurrada isaga gudba xoolaha iyo bani'aadamka. walaalayaal waxaa naga go'an anigoo ku hadlaya magaca xukuumadda inaan xoogga saarno badqabka cuntada. goordhowna waxaan qaban doonaa barnaamijyo arrimahaas ku saabsan. sidoo kale wasaaraddu waxay ka shaqaynaysaa sidii maalgelin loogu sameyn lahaa shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ka shaqeeya xoolaha iyo waxa ka yimaada wax soo saarkooda iyadoo lala kaashanayo deeq-bixiyaasha caalamka. mudanayaal marwooyin sidoo hadda agaasimaha ku dhawaajinayay shacbigeena Soomaaliya waayadii hore gaar ahaan dadkeena reer guuraaga aad ay ugu shaqayn jireen badqabka cuntada, laano caanaha waad la socotaan yani dhiisha lagu qaadayo sidoo hadda laga hadlayay yani waxa lagu sameyn jiray qoryo gaar ah ayaa lagu uumin jiray, waxa laga dagaalami jiray bakteeriyada iyo caanahaas dadka gaaraya iyagoo nadiif ah oo badqab aynay tagan. marka dadkeeni reer guuraaga ah baadiyaha ku noolaa ayaa sanooyin 100 sano ilaa 300 sano ka hor ay sidaas yeelayeen. maantana caanaha waxa lagu qaadaa waqtiga caagag saliid lagu keenay iyo waxyaabo dhibaato u keeni kara dadka badqabkooda. marka waxaa laga rabaa dowladdana diyaar bay u tahay inay ka kaalmayso shirkadaha ka shaqeeya caanaha, hilibka, digaaga, malabka inay ku dadaalaan badqabka annagoo kaashanayna hay'adaha caalamiga ah
adduunkana iyo deeq-bixiyaashana waxaan ballan qaadaynaa inaan gacan weyn idinkaga gaarsiin doono sidii loo badbaadin lahaa meelaha hilibka lagu gado, meelaha caanaha lagu ilaaliyo, waxaasoo dhan inaan kala shaqeyno haddii ilaahay. mudanayaal marweyn waxaan hortiina ugu mahadcelinayaa shirkadihii ka qayb qaatay barnaamijkan sidan u quruxda badan, shaqaalaha wasaaradda iyo hay'adaha FAO iyo WHO. waana mahadsantihiin dhammaantiin.